السلام عليكم دمانتين saaxiibada sharafta badan. Sheekada filimku waxay ka bilaabmaysaa 1992 Bogota, Colombia. Fabio wuxuu la hadlayaa Don Luis oo ah madaxa daroogada. Fabio wuxuu ku wargeliyay inuu ka baxayo burcadnimada oo uu u igman doono dhammaan xisaab ururintiisa saaxiib kale. Don Luis ayaa dhoola cadeynaya oo u sheegay inuu u xiiso doono isaga. Don Luis wuxuu eegayaa Marco gacantiisa midig intuu Fabio sii socdo, laakiin Fabio nacas ma aha oo uu ogyahay in maamulihiisu uu isku dayi doono inuu dilo. Wuxuu soo ururiyay 3 ilaalo ah oo daacad u ah oo guriga u cararay, isagoo og inay saacad kaliya u hadhay si ay dalka uga baxaan. Markuu guriga yimaado wuxuu u sheegay xaaskiisa Alicia in waqtigii la gaaray. Wuxuu farayaa inantiisa Cataleya inay tagto safaaradda Mareykanka oo ay siiso memory card haddii ay wax khaldamaan. Waxaa ku jira dhammaan faahfaahinta ku saabsan hawlaha sharci darrada ah ee Don Luis. Wuxuu kaloo siinayaa ciwaanka walaalkii. Fabio wuxuu markaas siinayaa Cataleya silsilad ubax ah. Marco iyo xubnaha kale ee burcada ayaa yimid daqiiqado kadib oo waxay laayeen raggii Fabio. Fabio iyo Alicia waxay qabsadeen qoryo waxayna isku dayeen inay iska celiyaan ragga, laakiin waxaa lagu dilay si fudud. Cataleya waxay soo fadhiisatay miiska iyadoo yaaban oo dhagaysanaysa rasaasta. Waxay si degdeg ah u liqaysaa memory card-ka. Marco iyo nimankii waxay u soo dhawaadeen Cataleya. Marco wuxuu la dhaqmayaa si saaxiibtinimo leh isagoo sheeganaya inuu saaxiib la yahay aabaheed, laakiin Fabio ayaa ka xaday Don Luis memory card-ka. Intay ku tiirsato ayay gacanta ka tooriyeynaysaa, daaqada ayay ka sii baxaysaa oo ay cararaysaa iyadoo tuugadii Marco ay eryanayaan ayay cararaysaa. Waxay kaga dhuumanaysaa god kadibna ay sii aadaysaa safaaradda Mareykanka, halkaasoo uu ku soo dhaweeyay sarkaal wax ka weydiiyey aabaheed. Waxay ku andacoonaysaa inuusan hadda noolayn. Markuu ninku weydiiyo in aabaheed uu wax qarinayay, Cataleya waxay si degdeg ah isugu qasbaysaa inay ismadajiso, waxayna u dhiibaysaa memory card-ka. Sarkaalku wuxuu u eegayaa si shaki ku jiro oo wuxuu weydiiyey inay ka warqabto waxa ay haysato. Cataleya waxay ku dhahaysaa baasaboorkayga. Waxay ka soo saarayaan dalka, waraaqaha sharciga ayay kaga bedelanayaan memory card-ka. Waxaa Miami u sii gudbiyey sarkaalad ka tirsan CIA-da Mareykanka. Waxay codsatay inay isticmaasho qolka musqusha, halkaasoo ay ka booday daaqadda. Waxay iibsanaysaa tikidhka baska Chicago sida uu faray aabaheed. Waxay aadaysaa meel sees ah, waxayna raadinaysaa Emilio. Emilio waa Fabio walaalkii oo ah adeerkeed. Dareen baa ka batay markuu arkay, wuuna isku duubayaa. Emilio ayaa maalinta xigta geynaya dugsi gaar ah oo laaluush ayuu siinayaa maamulka si ay ugu aqbasho bartamaha sanad dugsiyeedka. Cataleya way xanaaqsan tahay sababtoo ah waxay aaminsan tahay inaysan waxba ku baran doonin dugsiga. Waxay rabtaa inay barato sida loo noqdo dilaa. Emilio wuxuu la soo baxay bastoolad oo uu toogtay darawal, taasoo keentay inuu shil galo gaariga. Wuxuu u sheegay in gacan ku dhiglayaasha la soo kiraysto ay badan yihiin, laakiin ma noolaan karaan waqti dheer. Waxay u baahan tahay inay aado dugsiga haddii ay rabto inay sidan samayso, caqlina ay yeelato. 15 sano kadib, 2 askari ayaa ka sheekaysanaya xaasaskooda iyagoo gaarigooda saaran, markaas oo uu jiray darawal sakhraansan. Naag ayaa ka soo baxday iyadoo si aan kala go' lahayn u hadaaqaysa. Si dhaqso ah ayay u qabanayaan. Waxaanan arki karnaa silsilad ubax ah. Waa Cataleya, hadda way kortay. Waxay geeyeen saldhigga. Waa la qabtay oo lagu tuuray qol habeenkii. Habeenkaas US Marshals ayaa keenay maxbuus oo u kaxeeyay qolka. Cataleya way soo kacaysaa. dhab ahaantii iyada ayaa si ula kaca isu soo xirtay sababtoo ah waxay qorsheynaysay inay disho maxbuuska cusub. Waxay xiranaysaa dhar madow oo maqaarka ku dhegan oo waxay furaysaa albaabka. Waxay qaado ka soo qaadanaysaa koob kafee ah oo qolkeeda ku jiray. Kaamirooyinka ayay leexisay, biyo ka soo qaadatay qaboojiyaha oo waxay aadaysaa qolka korontada. Waxay dhigaysaa koobka iyo qaadada si ay shoog u abuurto oo ay gasho marinada hawada. Dhowr ilbiriqsi kadib biyo ku filan ayaa ka soo daadanaya koobka si ay korontada u damiyaan. Cataleya waxay dhex maraysaa marwaxadii hadda istaagtay wax yar ka hor intaan korontada dib u shidmin. Waxay soo gashay qolka ragga. Markii askarigii ilaalinayay maxbuusku ogaado inuusan haysan qaxwo, wuxuu ka baxayaa qolka oo waxaa garaacaya Cataleya. Waxay maydkiisa ku jiidaysaa kaamarada horteeda, taasoo keentay in albaabkii dib loo furo. Waxay toosisay maxbuuskii waxayna u sheegtay inuu shaarka iska siibo oo dhowr xabadood ku dhufatay. Ciidanku markay maqleen rasaasta waxay u yaaceen qolkii oo waxay arkeen waardiyihii oo soo kacaya oo qoriga haysta. Ciidanku waxay sii wadayaan inay baaraan dhismaha oo dhan. Cataleya waxay u baxsatay saqafka. Waxay ku soo noqotay dhuumaha hawada oo ay heshay qolkeeda. Albaabkana way xidhay oo ay dib u gashatay dharkeedii. Markay ciidamadu yimaadeen waxay iska dhigaysaa qof hurdaya. Kadib markii faraha laga qaaday Cataleya waa la sii daynayaa maalinta xigta. Intay xabsiga ka baxday ayay iska fujisay kooladii. Waxay isticmaashay maqaarka cinjirka kaasoo u ekaysiinaya faraha qof kale. Cataleya waxay ku soo laabatay guriga oo way qubaysatay. Waxay u tegaysaa Dani, Rinjile,
kaasoo sidoo kale ah saaxiibkeed. Dani waxba kama oga nolosheeda gaarka ah oo kaliya wuxuu ugu yeeraa Geneva. Dani iyo Cataleya waxay sameynayaan hasaawe waxayna ka tegaysaa subaxda xigta. Markii wakiilka gaarka ah ee FBI Ross uu yimaado xabsiga, wuxuu gartay in dhibanaha uu yahay kii ugu dambeeyay liiska dilka 22 ah oo ay baarayeen 4 sano ee la soo dhaafay. gacan ku dhiglaha waxaa loo yaqaanaa The Tag Killer sababtoo ah wuxuu calaamad ku dhigaa laabta dhibanaha. waxay u muuqataa inay tahay ubaxa Cataleya. Richard oo ah wakiilka CIA ayaa u safraya New Orleans si uu u tago guri villa ah oo aad loo ilaaliyo. Waa deegaanka Don Lewis. Richard wuxuu tusayaa joornaalka qoraalka xabsiga, laakiin Lewis wuxuu diidayaa inuu wax lug ah ku lahaa. Richard wuxuu u sheegay in CIA-du ay aad ugu wacnayd isaga si ay xog uga helaan. waxaa la siiyey ilaalin markhaati leh oo loo ogolaaday inuu sii wato ganacsigiisa. Lewis wuxuu Marco ku amray inuu xaaladda maareeyo kadib markii uu Richard baxay. wuxuu aaminsan yahay in Cataleya ay mas'uul ka tahay dilalka. ma uusan dilin Cataleya markii ugu horeysay, sidaas darteed waa inuu hadda sameeyaa. dhanka kale Cataleya waxay booqanaysaa Emilio. wuxuu u ballan qaaday walaalkii inuu ilaalin doono iyada, marna kuma uu talagelin inay wadadan marto. wuxuu iyada si joogto ah uga leexleexinayaa shaqooyinka si uu u ilaaliyo. Cataleya oo diidan waxay ku andacoonaysaa inay iyadu dooratay wadadan oo kama laaban doonto ilaa uu Lewis ka dhinto. Emilio wuu taahayaa oo u dhiibayaa hawsha xigta. maamulaha sanduuqa caymiska ayaa dejiyay qorshe Ponzi ah. wuxuu xaday balaayiin dollar ah oo uu dalkana ka cararay. markaa waa inuu dhinto. wakiilka Ross wuxuu joogaa xafiiska FBI-da isagoo eegaya muuqaalada kaamarooyinka. qaar ka mid ah wakiiladiisa ayaa aaminsan in gacan ku dhigluhu uu yahay Cataleya sida lagu arkay cajaladda, laakiin ma rumaysan karo in qof dumara ay ku kacdo dembigaas foosha xun. Cataleya waxay timid goobteeda shaqada halkaasoo ay ka heshay 2 ey oo waaweyn oo ay siinaysaa hilib. gudaha waxay ka helaysaa saaxiibka Emilio, Pepe. hubkeeda iyo gaadiidkeeda isagaa mas'uul ka ah. Cataleya waxay furtay meel ammaan ah oo ay kala soo baxday baasaboorkeeda been abuurka ah. dhanka kale, maareeyaha caymisku wuxuu ku nool yahay guri weyn oo villa ah oo ay ku hareeraysan yihiin haween qurux badan. wuxuu ilaaladiisa ku wargelinayaa inuu u baahan yahay rag badan caawa. Cataleya waxay dhex dabaalanaysaa barkada iyadoo iska indhatiraysa libaaxyada. waxay rixday oo ay furtay albaab quraarad ah si ay u gasho qasriga. waxay la soo baxday bastoolad iyo aamusiye. maamulaha sanduuqa caymiska wuu toosay oo wuxuu arkay kelimada tuug oo ku qoran laabtiisa. intuu ku wareegayo daarta uu degan yahay ayuu arkay in dhammaan ilaaladiisii ay dhinteen. wuxuu soo qabsaday 2 bastooladood oo uu soo galay aagga barkada, kadibna uu arkay ubax. Cataleya waxay ku fadhidaa kursi. wuxuu isku dayay inuu toogto, laakiin labadiisii qoriba way maran yihiin. waxaa lugaha ka toogatay Cataleya, kadib wuxuu ku dhacayaa barkada furan. kadib markay Cataleya xabadka xabad kaga dhufatay. markuu dhiigu qulqulo, libaaxyadii ayaa ilbiriqsiyo gudahooda ku cunaya. Cataleya waxay ku laabatay Mareykanka waxayna aadaysaa guriga Dani. dhanka kale, Ross wuxuu baranayaa kaarka wicitaanka Tag Killer. marka shaqaalaha boostada uu bixiyo tilmaam muhiim ah, waaba ubaxa Cataleya oo ka baxa kaliya Colombia. Ross wuxuu isku dayayaa inuu isku xiro kiisas ka furan Colombia, laakiin waa loo diiday in la galo sababo la xiriira awoodda CIA. Ross wuxuu wacay Richard wuxuuna ka codsaday ogolaansho, laakiin Richard wuu iska diiday mowduuca. wuxuu wacay Lewis oo wuxuu faray inuu xaaladda maareeyo ka hor intuusan wakiilka Ross ogaanin runta. Lewis wuxuu u xilsaaray Marco inuu raadiyo Cataleya. dhanka kale, gabadha ayaa casho la qaadanaysa Dani. cabaar bay sheekaysanayaan kadibna way seexanayaan. maalintii xigtay, Dani wuxuu si degdeg ah u qaaday sawirka Cataleya oo hurda. Cataleya way argagaxday oo waxay tiri waa inaan baxo. waxay kulan la yeelatay Emilio. aad ayuu u xanaaqsan yahay kadib markuu akhriyay wargeyska, sababtoo ah hadda cadowgu waxay og yihiin in ubaxa Cataleya uu la xiriiro iyada. Emilio wuxuu ku andacoonayaa inaanay khusayn iyada oo keliya, balse ay khusayso qoyskii ay ka tagtay. waxay ku ridaysaa khatar. markuu wiilkiisa dhintay, Emilio wuxuu dilay dad badan, laakiin waxba iskama bedelin. Emilio wuxuu siinayaa sawirka waalidkeed si uu u xusuusiyo waxa lumi kara. Cataleya way fadhidaa oo way barooranaysaa. waxay kaniisadda kula biiraysaa Emilio iyo ayeeyadeed. waxay u muuqataa inay diyaar u tahay inay ka tanaasusho rabitaankeeda argoosiga. Dani wuxuu joogaa goob lagu qaxweeyo isagoo saaxiibkiis uga sheekaynaya saaxiibtiis Geneva iyo sida uu u xiisaynayo iyada, inkastoo aan waxba ka ogeyn. saaxiibka ayaa arkaya sawirka wuxuuna la yaabay sida ay soo jiidasho u leedahay. Dani in yar ayuu baxay. markaas saaxiibkii ayaa telefoonka qabtay oo wacay dumaashidiis oo ka shaqaysa saldhigga booliiska. wuxuu ka codsanayaa inay hubiso Geneva si ay u xaqiijiso sharcigeeda si aan Dani waxyeelo loogu geysan. Ross wuxuu eegayaa kombiyuutarkiisa markuu helay fariinta sawirka Cataleya. sawirku waa kii uu ku arkay kaamarooyinka xabsiga. hadda Ross wuxuu raadinayaa gabar la yiraahdo Cataleya. Cataleya waxay ku soo laabatay guriga waxayna wacday Dani iyadoo isku dayaysa inay u muujiso dareenkeeda. marka Dani uu sheego sawirka,
way xanaaqday oo waxay weydiisay cidda kale ee aragtay intay Kataleya kormeerayso deerka gurigeeda wuxuu u sheegayaa saaxiibkii waqtigaas askar ayaaba joogta si ay u qabato waxay furaysaa shaawarka qubayska si ay uga baxsato aqalkeeda oo ay kor u fuushay saqafka dhowr guri ayay sii dhex maraysaa waxay helaysaa suuniya qoriga toogashada ee musqusha ninka halkaas oo ay hore ugu qarsatay intay Rose iyo wakiiladiisu baarayaan albaabka gurigeeda waxay derbiga ku dhajinaysaa walxaha qarxa tuubooyinka wiishka ayay hoos ugu soo degaysaa garaashka iyadoo adeegsanaysa suunka naagtu waxay tooganaysaa kaamaradaha oo ay ku dhuumanaysaa dhuunta hawada kale ka hor intaanay askartu soo gaarin waxay soo raacaysaa tareenka dhulka hoostiisa mara oo ay si dhuumasho ah u baxsanaysaa Kataleya waxay tagtay guriga Emilio laakiin waxay aragtay in la soo weeraray Pepe ayaa dhulka yaala ayaydeed ayaa meedkeeda laga helay jikada waxay raadisay Emilio waxayna ogaatay isagoo ku xiran kursi si xun ayaa loo jirdilay Kataleya ayaa raali gelinaysa oo qaylisay iyadoo murugo iyo tiiraanyo isku dartay markuu Rose guriga ku soo laabto Kataleya waxay ku sugaysaa qori waxay u soo jeedisay inuu fariisto waxay daaha ka qaaday in kursigu ku xiran yahay qarax xasaasi ah si ay uga hortagto inuu sameeyo wax nacasnimo ah calaamada ubaxa ee Kataleya waxay calaamad u ahayd Don Luis si uu u fiirsado Kataleya waxay uga digtay Rose in ilaa uu ka helo macluumaadka ku saabsan Don Luis ee CIA ay diri doonto xubin qoyskiisa ka mid ah toddobaadkii hal mar ilaa uu ka tiiraanyoonayo sidii ay dareentay sanadahaas oo dhan waxay ballan qaaday inay bambadeeda damin doonto isla marka ay baxdo taas oo ay samaynayso Rose wuxuu u soo dhawaaday Richard wuxuuna u sheegay xaaladda Richard wuu diiday inuu sheego macluumaadka Kataleya ayaa wacday Rose waxayna u sheegtay in Richard uu siiyo ciwaanka mooyaane uu dhiman doono Richard wuu jeesjeesay isagoo tilmaamaya in daaqadihiisa ay yihiin muraayado aan xabada karin Kataleya ayaa ku soo toogatay muraayada qorigeeda shiishka wayna cabsi gelisay Richard wuxuu siiyay ciwaanka Kataleya waxay soo gashay garaashka Pepe waxayna soo qaadatay xoogaa hub ah labadii ay bay dareentay wayna eegtay waxay wadanaysaa gaariga gaashaaman waxayna u kaxaysay Don Luis goobtiisa Marco ayaa nimanka ku hagaya qasriga Don Luis ninku waxbuu arkayaa waxay qarka u saaran yihiin in lagu dhufto gantaal Luis si dirqi ah ayuu uga leexday markuu gantaalku ku qarxay qolka Marco ayaa soo jiiday waxayna isku dayeen inay soo saaraan afar ka mid ah nimanka ayaa fuulay baabuur si ay kolonyo u bilaabaan Kataleya ayaa baabuurkeeda albaabka ka soo gelisay oo burburisay baabuurka intay soo baxday ayay raggii wada dishay israsaasayn badan kadib waxay si tartiib ah u dishay ragga Luis iyo Marco wuxuu Luis ku xiray qol amaan ah isagoo isku dayaya inuu dilo Kataleya waa Marco iyo hal nin oo kale kadib dhowr xabadood oo kooban Kataleya ayaa dishay ninka kadibna waxay kula kulantay Marco qorigeeda waxay bilaabeen inay gacmaha iskala dagaalaan iyagoo hubka dhigis isku sameynaya Kataleya waxay qorshaysay inay tuwaal ku ceejiso Marco aakhirkii wuxuu qabsaday qori oo wuxuu isu diyaariyay inuu toogto laakiin Kataleya ayaa ka saartay qasnadii oo ay kala furtay bastooladiisii waxayna ka gelisay qoorta Luis wuxuu ka baxay qolka wuxuuna qaatay mid ka mid ah baabuurtiisa isagoo garwaaqsaday in dhammaan raggiisii ay dhinteen laakiin Kataleya wax fikrada kama haysto halka ay joogto wuxuu u istaagay gaari qashina dartii waxaana laga soo wacay telefoonka gacanta ee Marco Luis ayaa sheegay inaysan weligeed dili doonin laakiin hadda gadaal ayuu eegay labadii ay waxay ku jiraan gaarigii uu ku baxsan lahaa waxay kala jeexjeexeen isaga iyagoo dhameystiraya argoosiga Kataleya Danny waxa su'aalay Rose laakiin ma garanayo Rose ayaa ku andacoonaya in inkastoo aan la xirin uu weli haysto su'aalo uu ka jawaabo Danny wuxuu telefoon ka helay Kataleya waxay u sheegtay inay fiican tahay waxayna haystaan 40 ilbiriqsi ka hor inta aan la raadin telefoonkeeda taasoo ku filan waqti ay isku weydiiyaan 3 su'aalood wuxuu weydiiyay magaceeda saxda ah oo ay ugu jawaabtay waa Kataleya Danny wuxuu weydiiyay in shimbirtiisii yareed ay u soo laaban doonto Kataleya ayaa u sheegtay in laga yaabo in maalin uun ay awoodi doonto marka wakiilku uu ku wargeliyo Rose in Danny ay soo wacday Kataleya dib ayay u soo yaaceen oo Rose ayaa ku amray inuu u dhiibo telefoonka laakiin Kataleya ayaa demisay ka hor inta aanu wax macluumaad ah ka helin Rose wuxuu eegay telefoonka wuxuuna u sheegay Danny inuu bixi karo Kataleya waxay gashanaysaa muraayadaheeda indhaha waxayna raacaysaa bas u socda meel aan la garanayn muuqaalka halkan ayuu ku egyahay fadlan taawo subscribe iyo like haddaad jeceshahay muuqaaladan oo kale kulanti dambe oo aad u xiiso badan mahadsanid